halkani waa madxafka qaranka Soomaaliya oo ka mid ah goobaha danta guud. Waxa uu ka mid yahay goobaha iyo xarumaha muhiimka u ah dalkeena. Ayaan darase ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka afeeyay muddadii dheereyd ee ay socdeen. Jiilasha soo koraya iyo kuwii ka horreeyay ee dalka ayaa u badan inaysan garanayn ahmiyadda uu u leeyahay madxafka qaranku bulshada. Waxaana doorbidnay inaan warbixintan si kooban ugu iftiimino bulshada maadaama ay iyagu leeyihiin xaqna ay tahay inay ka ogaadaan waxa ay uga baahan yihiin madxafka qaranka, sidoo kalena u baran lahaayeen waxyaabaha ay uga baahan yihiin madxafka qaranka iyo halka ay u raadsan lahaayeen. Ugu horreyn waxaan dhagaha dad badani ku cusbayn ereyga madxaf, bal aan isla fahanno marka hore waxa uu macno ahaan daaran yahay afkeena Soomaaliga iyo halka uu ka soo galay ereygan. madxaf waxa waaye waa meel lagu kaydiyo dhaqanka iyo taariikhda ummad ay leedahay. ummadda Soomaaliyeed waxay lahaan jirtay taariikh soo jireen ah markii ay timid dhulkan geeska Afrika. taariikhdaasina markaa waxay u baahan tahay in la kaydiyo, in jiilal soo socdo wax loo dhiga meel loogu dhigo. madxafku wuxuu qabtaa taariikhdaas inuu ururiyo oo hadhowna dib u bara dadkii dambe generationada soo socdo. haddaba intaasi isla garanaya maxay tahay sababta ereygan madxaf oo afqalaad laga soo min guuriyay looga doorbiday af Soomaaligeena hodanka ah? bal mar kale aan hor dhigno su'aashan agaasime Cismaan. soo gaabnayda maadaama uu madxaf qaran uu wax kooban uu yahay kana uu aad u dheer yahay ayaan wax filayaa in loo doortay ereygaas ay too insaan loo qaato, waayo hoyga dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed waxa waaye kusoo celcelinteeda ama qoraalada markii la qoraayo waxa way ku dhib badnaanaysaa. laakiin madxaf markaad tiraahdo waxay noqonaysaa wax oo la Soomaaliyeynayo oo wadamada carabtu noo yimid, laakiin waa Soomaaliyeynaynaa oo markaa ummaddu saasay u fahmaysaa. agaasime Cismaan waxa uu sidoo kale TV-ga qaranka ee bulshada Soomaaliyeedba la wadaagaya hadafka guud ee madxafka qaranka, qaab adeeg bulsheedkiisa iyo habka uu u socdo howlaha dib u dhiska madxafka qaranka. in dib aan u howlgelino madxafka halkan ku yaalo Muqdisho ku yaalo. taariikhda gobolada Soomaaliyeedna waxaan mas'uul oga nahay inaan ururino sida muxuu ahaa taalooyinka waddanka ka jiro oo dhan. madxafku wuxuu yeelanayaa qaybo oo goboleedka ah, maamul goboleedyadu ku yeeshan doonaa. laakiin marka hore waxaan rabnaa bal madxafka Muqdisho ku yaalo inaan dib u noolayno, u howlgelino, markaa kadibna aan u gudubno gobolada Soomaaliya. madxafka qaranka ayaa lahaa magac ka sii horreeyay midkan aynu hadda u wada naqaano ee ah madxafka qaranka, kaasoo ahaa Barkhash Siciid. Talyaaniga markii uu yimid oo dhulka kala wareegay ayaa wuxuu Talyaanigu isku dayay in uu sameeyo meel oo madxaf ah. gurigii uu deganaan jiray taliyihii koonfurta Soomaaliyeed ee Barkhash Siciid ayaa waxaa loo bedelay meel lagu kaydiyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed. taana waxaa la bilaabay 1933 ayaa la bilaabay, wuxuuna shaqaynayay ilaa iyo 85 ayuu shaqaynayay. 87diina waxaa la furay midkan ayaa loo soo wareejiyey alaabtii iyo agabkii iyo wixii oo dhan. bal aynu mar kale dib u milicsano taariikhdii hore ee dalkeena Soomaaliya uu lahaa iyo waxyaabihii uga hadhay aafooyinkii uu dalku u geystay dagaaladii sokeeye ee muddada socday. maxay yihiin waxyaabaha la taaban karo ee hadda u hadhay dalkeena, hiigsiga sanadaha dhow iyo filashada uga qorshaysan maamulka hadda gacanta ku haya madxafka qaranka? waddankani horta waa waddan qani ku ah xagga muxuu ahaa duurjoogta iyo kala gedisnaanta noolaha, ama dhir ha noqoto ama muxuu ahaa xayawaan ha noqdo. waddankani wuxuu leeyahay weli rajuu leeyahay oo waxa waaye meelo badan oo waxaa jira oo duurjoogta ay ku badbaaday. meel ay ka ciribtantay way jiraan, laakiin nasiib wanaag waxa oo ciribtirmay waxa waaye waa xayawaano oo adduunyadoo dhan ku baahsan oo aan meel walba laga heli karaa, sida maroodigoo kaleeto Kenya laga helaa, Tanzania laga helaa. laakiin deeradii iyo cawshii Soomaaliya keliya laga helayay weli way noo nooshahay, way noo joogtaa. waxaan u baahannahay oo keliya inaan ku baraarugno in aan ku fara adeegno inta yar ee noo hartay duurjoogta ah oo loo sameeyo seerooyin lagu badbaadiyo.
duurjoogta waxaa lagu badbaadiyaa seerooyin si oo meel gaar ah iyaga ay ugu noolaadaan waana lahaan jirnay waageennii hore dowladdii hore intaysan burburin waddankan wuxuu lahaan jiray ilaa iyo 32 seerooyin oo duurjoogta loogu talagalay in dib loo soo nooleeyo ayaa loo baahan yahay oo wasaaradda muxuu ahaa mas'uuliyadda leh muxuu ahaa ay qayb weyn ka qaadato madxafka qaranka ayaa waxaa dhawaan lagu dhisay ololaha isxilqaan ee dib u dayactirka iyo dhismaha loogu sameynayay goobaha danta guud iyo xarumaha dowladda qaar waxaana uu ahaa olole ay si weyn uga wada qayb qaadanayeen dhalinyarada mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda kaasoo noqday mid hirgalay oo dib loogu soo biric celiyay goobo badan oo hadda gacanta dowladda ku jira